بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinla wadaago sida aad u arki lahayd masajyada laga daleeday messengerka tusaale messengerka qof kala sheekeysanaysay qoraal uu ku soo diray qoraalkii uu ka daleeday adoon arkin F1 oo ka dhigay qof walba oo ku daleeday asna iska daleeday adana uu ka daleeday marka waxaan rabaa muuqaalkan inaan ku tuso sida aad u arki lahayd marka hore waxa u baahan tahay application loo yaqaano Unseen Messenger waxaad kala soo degaysaa application loo yaqaano Play Store-ka Unseen Messenger ku qor kadib Go ama search kadib wuxuu ku soo bandhigi doonaa application tira badan mid kana kala deg oo hadda shaashada ka muuqdo horaan u dajiye haddaan permission siinayna open ayaan leenahay marka open dhahda kadib wuxuu ku soo bandhigayaa face scan meeshaas jeega saar kadib waxa leedahay continue marka continue dhahda kadib wuxuu ku keenayaa halkan waxa leedahay enable permission yani ina u fasaxdo permission ina u fasaxdo rabaa meesha waxa leedahay marka enable permission taabo halkan marka taabad kadib halkan meesha ay qoran tahay Unseen Messenger enable ka dhig marka enable ka dhig kadib isla markaa waxa leedahay allow marka allow doorto kadib waxa taabanaysaa halka baaga calaamada meesha baaga telefoonka loogu laabto baaga taabo marka baaga taabto kadib waxa ku soo baxay interface-kan waxaad kasi leedahay continue marka continue dhahda kadib meeshan oo jid wuxuu ku leeyahay enable storage permission yani telefonkaaga storage intuu ka qaada lahaa ayaa u aqbalaysaa ama kale u fasaxaysaa waa enable gareynaysaa halkay qoran tahay enable permission ayaad markaas taabanaysaa enable permission taabo kadib waxa leedahay allow markaad allow dhahda kadib waxa leedahay continue permission siinayna si telefonkan barinaya yani application-ka soo u shaqeeyo kadib halkan wuxuu ku soo bandhigay application tira badan sidoo kale Telegram kadib wax laga dileedo waa arki kartaa iimaha WhatsApp-ka Instagram-ka Snapchat-ka midka arabta marka fix arnaysa anaga waxa u baahanahay Messenger-ka u baahanahay Messenger-ka ayaan tag saaraynaa kadib waxa leedahay continue ayaad leedahay marka continue dhahda kadib hadda wuxuu bartay Messenger-ku wixii laga dileedo in uu soo qabto ama kala halkan uu ku soo geliyo okay application-ka aan ka baxna marka waxaan aadinaa Messenger-ka masajida labo messenger hadda ay kacsan laakiin telefoonka la haysta telefoonkaas kala waxa ka soo digaa salaan waan daleeda waxaan rabaa inaan ku tuso salaantiis marka daleeda kadib inay meeshaas galayso okay waxaan ka soo diraa marka messenger ani ahaaya waxaan ka soo diraa assalaamu calaykum messengerkayga inuu soo dhaca ayaan rabaa marka uu soo dhaca kadib waa kana hadda assalaamu calaykum ayaan soo diray messengerkan aan furo oo ujeeda meeshaas assalaamu calaykum aan soo diray fur marka furto kadib waxa ujeeda aragtay hadda in la soo diray assalaamu calaykum oo kaliya marka السلام عليكم كان وجيت تدم حاسمنا تلفون كان هايو أيان كدليدا مسنجر كأيان كدليدا السلام عليكم دان أذو وجيت إز دليدا هذا نحققنا وهذا أبليكيشن كسيع وصاركنو أوكي عند دليدا مركا تلفون كأيان كدليدا يا وكا حوجدا إن دليدا مسنجر كسلان تام كصدر وان دليدا مركا أبليكيشن كأذنا ساع وصاركنو محان إن حقيقي إن كلا عن تج أبليكيشن كأنسين مسنجر كقرن شاشة دوكا صوب مغضي فر مركا فرتو كدب waxaad arkaysaaba wixii la dileeday qofku uu kuray waa kana assalaamu calaykum ayaa la dileeday ku dhahay hatta waa si fur kartaa saa u sii aragto qofku yahay assalaamu calaykum waa kana justina meesha u jeedo falaartu taa waxa way justina hadda la dileeday oo qofkii ku soo diray hadii uu ka dileedo meeshaan uu ku soo galay un fadlan hadii aad channelka cusubta subscribe saar la wadaag asxaabtaada muuqaalka u share garay hadii aad muuqaalka heshay like saar inta wixii ka dambeeyo guuleyso